السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتا كحران جانك نجيب أصحابتي هوري نولا joogtay kuwa gadaal noogu soo biiray intaba waxaan leeyahay soo dhawaada walaalayaal sida quruxda badan aad youtube-kayga aad u fiirsataan mar walba barnaamijyadeeda aad ugu xiran tihiin walaale xagga leega xagga istiraabka intuba dhiirigelin bay ii tahay aniga leega inaad igu roonaataan maasha allah waxa weeye walaal waxaan wax ku ahay waa ininka marka mar walba waxaan jecelahay wax dee calaashaan ama danaha dadka ka hadlaya oo ama dadkeena iska yara dhibaataysan inaan youtube uga faa'iideeyo marna ganacsigayga iyo waxaas aan kusoo bandhigo marka mar walba waxay iga barateen barnaamijyo qurux badan inaan inii daadihiyo mana jecli inaad iga caajistaan markasta waxaan jeclay dadka walaaladaya aan wax ku nahay faamilkaygii baa tihiin dadkaygii baa tihiin asxaabtayda tihiin waxaan wax ku nahay waa ininka marka walaale xagga istiraabka sheerka dhiirigelintu intuba waa xaggiina walaalayaal maanta waxaan rabaa laba masalo inaan halkan kaga hadlo waa masalada ugu horeysa inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun wiilasha tacsida ku dhacday magaaladeena xamar wiilasha walaaladeena ku dhintay horta waxaan leeyahay faamiligii iyo dadkii oo dhan iyo inagoo dhan dhammaan ilaahay samriga iimaan ilaahay inaga wara siiyo maalin walba wiil ama gabadh ama qof qurux badan oo dadkeenii calaashan dhalinyaradii soo kacaysay ama qofkeenii meesha fiican ku beegnaa ayaa maalin walba la leeyahay shabaab baa qarxisay marka tacsida waxaan leeyahay inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun ilaahay dhammaan faamilkoodii anoo kala qaadqaadeen dadkii oo dhan ilaahay samri iimaan ilaahay ka siiyo ilaahay naga wara siiyo waa la wara dhammaanayaa ama hadduu jaamic yahay iyo hadduu yahay mid guri fadhiyaba mana awasho naftani mana aakhirto maalin unbaa sabab lagaaga soo dhigayaa wax marka walaalayaal ilaahay samri iimaan horta haynaga siiyo waxaan kaloo walaal rabaa inaan ka hadlo wiilka walaalkeen asad xaaji nimankii dilay oo inkaar qabooyinka ahaa oo shalayto la toogtay baan arkayay balaha bulshada markaa walaalkayo dhibta ku taala waa dhib annaga nagu taala dhibaatada ku taala waa dhib annaga nagu wara taala marka maanta iyagii baa dhib qaba aakhiro iyo adduunka waxay geysteen ilaahay aa la xisaabtamaya laakiin maanta alxamdulilah rabbilcaalamiin waxaynu helnay dowlad keena wax disha intii ilaahay subxaana watacaala dhiigga islaamka ilaahay soo biiciyo qabata la toogto oo aan heer hebel heer ficistoona loo eegin ayaa maantaanu aragnaa marka walaalkaya asad xaaji wallaahi waa la murugoonay fideogaas aad baanu la murugoonay triibkii hore uu soo qaatay iyo triibkanba aad iyo aad baanu la murugoonay laakiin murugadii way naga hadhaysaa walaala sadow adna walaale habeenkaad xabyo biyo tahay ba ilaahay kuu qoray haddaan ilaahaygu subxaana watacaala ina yar baad aheyd ina yaroo shaqaysanayaad aheyd dowlad iyo aafaabtaha mabaad matali kareen ilmo yar baad aheyd sawiradaada saan u aragnay markaa walaal gacaliyo ilaahaygu subxaana watacaala xukumay in wax kasta xukunka ilaahay ayay ku dhacaan walaale markaa walaal waxaa loo baahanyaa sadow inaad samirtid samirka badisid waxa weeye hadduuna qofku samrin aad bay u dhib badan tahay walaale inaad aada u samirtid baan ilaahay ka rajeynaynaa walaal waa ku garab taaganahay walaaladaa baanu nahay markaad wax farxad la soo gelisid youtube-kana farxadaan kula qaybsanaa markaanu aragno wax adiga kugu saabsan inaad soo gelisidna wallaahi maalintii aad soo gelisay youtube-kaaga aad kaga hadlaysay wiilasha meesha lagugu dilay tegey waan ooyey indhahay madoobaaday maalin iyo hameen baan ooyay waan qiro haddana ilaahay baanu toobad keenay waxa weeye walaal qofka walaalkahaya oo dhibban waad dareemaysaa laakiin alxamdulilah waxba kaama maqno walaale waxalaale wax kaa maqan walaale ma jirto waxa weeye walaale inaad ku samirtid ayaa la eegayaa samirka badi walaale sadow samirka badi inaad samirtid baa loo baahanyahay walaale alxamdulilah rabbilcaalamiin laba wiiloo walaaladaaya oo garabkaagiya oo dhibtii ugu adkeed kusoo qaato kusoo xambaartay baa ku garab taagnaa adoon cidba haysan baa maanta aad sii murugoon lahayd shacabka soomaaliyeedna waa ku garab taagan yihiin dal iyo dibadba waan ku garab taaganahay walaale macaanow markaa walaale macaano markaad faraxsantay waan kula faraxsannahay markaad murugeysantay waan kula murugeysanahay markaa walaale waxaan ku leeyahay samirka badi gabar walaasha ayaabaan ahay samirka aad iyo aad u badi walaale markaa
aad baan kuu salaamayaa walaale macaano fideogeygaasi hadduu kusoo gaadho guriga gobonimaan kuu rajeynayaa walaale hore u soco baan ku leeyahay gadaal ha soo eegin aad baan kuu salaamayaa walaal gacaliya iyaguna maanta way dhadhamiyeen xanuunkii way dhadhamiyeen rabbi baana la xisaabtamaya fideoga intaasan kusoo gabagabeynayaa walaalkay astaxaaji murugadiisa inaan kala qayb qaato tacsida inagu timid inaan ka qayb qaato dadka walaaladaya Soomaaliyeed tacsidaa ku timid inaan ka qayb qaato ayaan damcay marka ilaahay samir iimaan wiilasha walaaladeyna ilaahay naga wara siiyo wala wara dhimanaya taasayna wara sugisa maalin walba aad soo kacdid hadda caafimaad ku soo kacdid alxamdulillah rabbil caalamiin baa la yiraahdaa marka dhinaca dhulka dhigtid alxamdulillah rabbil caalamiin baa la yiraahdaa naftan inay kugu soo noqonayso in kale Allah oo caalam marka walaalayaal waxayni rajeynayaa khayr bayni rajeynayaa ilaahayna dhibtahay naga qaado ilaahay dhibtahay naga qaado guriga gobonimo ayni rajeynayaa qofka inuu la hadlaya oo manajib wajanakii uu manajib asxaabta hore asxaabta dambe aad iyo aad bayni salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa waxa ay saaka xukun dil ah ku fulisay Maxamed Xaaji Axmed oo caan ku ahaa macallin ilka case iyo laba xubnood oo kale oo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab fagaaraha dugsiga tababarka ee General Kahiye ee Iskool Buluusiya ayaa saaka waxa lagu toogtay Maxamed Xaaji Axmed macallin ilka case Axmed Maxamed Hashim iyo Salim Saciid Maxamed kuwaasi oo lagu helay dilal kala duwan oo ay ka geysteen magaalada Muqdisho maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa 19 bishii Juulaay ee sanadkii 2019 waxa ay xukun toogasho ah ku riday macallin ilka case iyo xubno kale kadib markii ay racfaan ka qaateen xukunka dilka ah oo horey loogu riday kuwaasi oo maxkamaddu ay sheegtay in dilal qorshaysan iyo weeraro kala duwan ay ka geysteen magaalada Muqdisho General Cabdullaahi Buula Kamey xeer ilaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ayaa ku dhawaaqay xukunka maxkamadda taariikhdu markay 31 bishii 12 2019 waxaa maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida u fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedeysanayaasha kala ah 1 Maxamed Xaaji Axmed ilka case 27 jir ah ina Faadumo Cumar Xasan ku dhashay Shabeellada Hoose 2 Salim Saciid Maxamed Salmaan 27 jir ah ina Leylo Xasan Cumar ku dhashay Shabeellada Hoose 3 Axmed Maxamed Hashim Carab 26 jir ah ina Cadday Axmed Islow ku dhashay Shabeellada Hoose kuwaasoo xafiiska xiraalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay dambiyada kala ah ka mid noqosho urur hubaysan oo lid ku ah awoodaha qaranka qarandumis iyo dilal bareer ah eedahaasi oo kala ah 1 taariikhdu markay ahayd 10 bishii 8 2016 marxuum Cumar Maxamed Abiikir 2 marxuum Sareeye Guuto Bool Ismaaciil Axmed Ismaaciil Makayaalow taariikhdu markay 28 bishii 10 2016 3 taariikh 27 bishii 4 2017 marxuum Eki Sareeye Guuto Maxamuud Xaaji Cali 4 taariikhdu markay ahayd 24 bishii 9 2017 marxuum Eki Sareeye Guuto Xooga Cabdullaahi Maxamed Sheekh Xasan Quruurux iyo askari ilaalo u ahaa lagu magacaabayay marxuum Ekis Dable Xooga Maxamed Bile Gacmay oo ka wada tirsanaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed 5 taariikhdu markay 16 bishii 1 2018 marxuum Cabdulqaadir Daahir Diiriye oo ka tirsanaa ciidanka asluubta Soomaaliyeed 6 taariikhdu markay 20 bishii 2 2019 marxuum Maxamed Cabdiraxmaan Maxamuud oo ahaa ku xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee qaranka waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah saddexda xukun sane ayaa xukunkii maxkamadda ka qaatay racfaan taariikhdu markeed 31 bishii 12 2019 maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida waxay mar kale dil ku xukuntay eedeysanayaasha 19 bishii 7 2020 maanta oo ay taariikhdu tahay 29 bishii 11 2020 waxaa lagu fuliyay xukunkii dilka ahaa Xasan Kaafi Xaji Maxamed 5 TV Muqdisho.